Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaynu ka hadli doonaa xidhiidhka ka dhexeeya folic acid iyo pregnancy. In badan waxaynu aragnaa in dhakhaatiirtu ay usoo qoraan hooyooyinka maadada loo yaqaano folic acid. Maxay tahay folic acid? Muxuuse yahay faa'iidada ay folic acid u leedahay uurka? Folic acid waa vitamin ka mid ah fitamiinada muhiimka u ah jidhkeena. Acid waa vitamin ka mid ah fitamiinada jidhkeena u baahan yahay. Markaa si gaara fitamiinkani waxa uu qabtaa shaqooyin aad u badan buu jidhka u qabtaa, laakiin waxaynu dul istaagi doonaa maanta faa'iidooyinka uu leeyahay gabadha uurka leh. Folic acid waa maado aad muhiim ugu ah gabadha uurka leh, waxaana lagula taliyaa gabadhu inay qaadato cunooyinka ay maadadani ku badan tahay ama dawooyin lasoo sameeyey oo maadadani ay ku jirto. waxaa muhiim ah in markaa waa maxay sababta markaa lagula taliyo gabadha uurka leh inay qaadato, maxaase ay tahay shaqada ay maadadan folic acid ay ka qabato uurka. Folic acid waa maado aad muhiim u ah xilliga la joogo uurka hooyada, sababtoo ah xilliga uurka waxaa bata baahida hooyada oo maadaama ilma soo koray oo isna uu u baahan yahay nafaqo, u baahan yahay dhiig, u baahan yahay. Waxaa dhacaysa in dhiiggii hooyadu ay sameynaysay haddii aan la kordhin uu intii hore ee hooyadu haysatay in hoos u dhaco. saa darteed waa in markaa folic acid hooyadii ay cuno nafaqada oo folic acid ku jirto ay qaadato, ama ay qaadato markaa dawooyin sharoobooyin markaa ay folic acid ku jirto. Folic acid muhiimada weyn ee le waxa weeyaan kow in ay ka qayb qaadato soo saaridda dhiigga, gaar ahaan dhiigga cas, iyo sidoo kale inay caawiso korniinka maskaxda ilmaha yar. sidoo kale ay ka hortagto in uu samaysmo in xanguladii ilmuhu uu dibadda usoo baxo, lafdhabarta xanguladeedii dibadda usoo baxdo. saa darteed faa'iido muhiim ayay u tahay, waana sababta lagula taliyo dumarka uurka leh inay qaataan folic acidka xilliga uurka. Marka waxaa jira laba qaab aynu kala qaadinaa. sideedaba waxaa muhiima oo fiican gabadhu ay qaadato folic acid, laakiin way kala riski badan yihiin, way kala khatar badan yihiin. oo gabadhu hadday hore usoo dhashay ilmo yaroo xanguladiisu dibadda yaalaan, waa inay in xaddi ka badan ay qaadato folic acid marka la barbar dhigo gabadha aan hore iyadu ula kulmin dhibtan oo kale. Marka folic acidku aad bay muhiim u tahay, waxaana muhiima gabadhu inay qaadato xilliga hore ee ilmuhu samaysmayo, xilliga hore ee bilaha hore ee ilmuhu samay 3 bilood ee horeysa, waayo xilliga ilmuhu samaysmayo maskaxdii bini'aadamka, jirkii bini'aadamka oo dhan ay samaysmayaan. saa darteed waxaan ku boorin lahaa in ay dumarka uurka leh inay qaataan folic acid iyo fitamiinadii kale muhiimka u ahaa jirka, nafaqada jirka u ahaa, ayna xoojiyaan nafaqada jirkooda sida ugu macquulsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.